yanka dhalinyarada beelweynta biciide Siciid Aadan Siciid oo jirjirayd ku qabtay isla gudaha degmada Garadag ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay labada ciidan ee kala ah ciidanka booliiska ee degmada Garadag iyo ciidanka asluubta ee degmada Garadag in loo qaado gobolka Sanaag si ay uga dubaaltegaan maalinta 18 May magaalada Ceergaabo waxaana uu afhayeenku eedeymo u soo jeediyay maamulka degmada Garadag iyo ka gobolka Sanaag waa sidoo hadalka u dhigay afhayeenka oo hadalkiisii sii wata ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ka jirta degmada Garadag ee deegaanada hoos yimaada oo lagu soo hayaamay haddana ay bilaa ciidan tahay degmadu waxaana uu baaq u diray dhammaan ciday qusaysay inay soo fargeliso arrimaha saaka waxaa halkan aan kaga hadli doonaa insha Allah taala caqabado ka jiray degmada muddooyinkii u dambeeyay caqabadahaasoo ah dagaal ka socda ama ka dhana gudoomiyaha gobolka Sanaag dadna shacabka Garadag waxa gudoomiyuhu wado kuma qanacsan waana ka soo horjeednaa haddaan taabto waxa ka mid ah waxa jirtay in xaalad emergency lagu jiray oo abaar ah oo Garadag ay hayd iyo degmada Ceelifweyn ay haayeen deegaanada abaarta ugu badan ka jirtay laguna soo hayaamay ee gobolka Sool iyo gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar iyo gobolka Saaxil inta laga soo hayaamay iyo kuwa ka baxsan Soomaaliland waxa jirtay in caawimooyin dawladda dhexe ka yimid iyo guddiga abaaruhu mas'uul ka yihiin oo heer qaran la soo gaarsiiyay waxa jirtay in aanu transparent u qaybin gudoomiyuhu waxa $7,000 oo guddiga abaaruhu keeneen intuu bakhaar Ceergaabo ka furtay oo isaga xaaji ku shuraakeeyeen oo ay baabuur soo sawireen ayay dagaal ku galeen inay degmooyinka waxoodii iyo dadka ugu indhasaabanayaan xeeb baan u dirna wax la wax ka jira ma jiraan dadka yaan aqligooda lacaayn baan leenahay iyadoo taas jirto waxaan ognahay xeebta raashinka u dirteen dagaal ina cid kula dagaalamaysiin oo dad ganacsi iyo hawlo حرب استدقال بعد دقال قبل كي سنة قاد كانت دقال دقالة أيو كسو فائدة وكسو كرديان وكان كران ما أنت شيء كرا والله وقض وبخار وبرصاب كي بخار كفرطي يبالو واحد صندونا يبرصاب كي دقال كدقالها كبلاوي قبل كي سنة وحنوضو القادة لنا مدة المدحوين سير كريمة جده عد كستوي قصيصو حولنا صدق قض أفر قضبة مصبيحون لجوجو دورتو شروط كواحد ربما نكون شيء إن الحسب جالس كورة شروط دكوات بهذا وديبتو حمل حاش فالإلهي بكو جرنسيو الحمد لله رب العالمين ورجينا إنه جان كقبته أما حسن حال على قبته لو هذا بون رجينا قضبك صدحات قرضك والدقمدي عدك وجو بضات كهشي بالله قصاره ومد إسلام كاردن بكعبت وعيالك إلى الله يا 60 كيلومتر ويا لام النورديك مدحوين حلقي ولا وحبين أينو وحولا لهين يحلقي إنه فولنتيرز كدورنا ميد الولا ضعف دام كلك في تمرير قبيلة أنا ومركي مدحوين السيلاي ومدحوينها مركي واحد كست اللي جالسي قبيلي وحيسوتها قالوا كم ظهرات عندنا رصاص ضايرك كقال ما يسيسان وكقال علنا بيره هل كاسي يستاجي هذا عندنا قدوني السيلاي أنا وكورن ما إنه وانت سبان كادولنا كملهم مدحوين نيل سبان كهالنا عافماتك يبيه يلايك يو وحبرشة لا يسوي هذا بيس كالنيرسك ميدل بون كار هذا هاي وحكا قو عد خيجو مانت كم حدنا قف ميل شوجا كم حدنا حسن محل على هدوء السير جاي وقال كنا عضو الرئيسة أيو كل ميوك تجو سير كويه midka wasiirka adan qodobkayga labaad kugu noqon jiray bakor iyo biciid oo ismeeyay madaxweyne
inta jirin abakor political position jooga ama political finger joogo ayaan ka doonaya ama agaasimo ha noqoto ama admin finance ha noqoto ama ha noqoto janamo ama ha noqoto barasaabo ama ha noqoto wasiiro ama ha noqoto wasiiro ku xigeen wixii ay leeyihiin man doonaya taasi waa taayo tabashada dawladda in shacabka udub riixa waxaynu waynu naqaanaayo marka la isku soo hayaamo waxyaabaha ugu badan ee ka yimaada waxa weeyaan dadka caraabta ay xoolaha haysta wax badan ay fahansaneen nabadgelyada xooma yaqaanin waxay hayd in ciidan la keeno laakiin ciidan laga qaado saaka ma ahayn waxaan ka hadlaynaa ciidankii joogay walba iyadoo ay dulmanayd oo 10 askari ay saldhiga ilaalinayeen garadag joogeen iyadoo garadag badka inta leegay xukunto qof waliba garanayo aqri u saaxiib oo ay dulmanayd oo hal xaajiyad booliis lahayd iyo asluubtoo yar xoojin jirto xaajiyad wadatay in labadiiba gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo ceer gaabo ee dhiin may uga dabaaldega tan dhaysna ku maqnaada aqliga oranaya magaalo degmo doorasho ah waliba garadaga degmo doorasho waliba garadaga oo degmo aad u saameyn la ah qaranka iyo cid walba ku saameyn la ah oranaysa ee dhiin may lagama dabaaldegayay ceer gaaba laga dabaaldegaya waatee waa aqliga de in istabir mudane madaxweyn shaqaaluhu hadduu bato maraqa xumaada horta haddii cidda wax kuu sheegaysa ee kule hebel ba halka ku haboon ay xumaato waxyaabaha keenay inaad kursigaaga weydo wey waxaan kuleena transparency samee ciida uu dulmaya kuraasta u qayb wixii nagu dheeraada ee boosishka hayn kari waaya xaq baad u leedahay bedelo biciido ku bedel anaa leh bara saabka cid kalena ma siin kartid laakiin waxaan kuleena in soo dooran ina garadag halkay taagantahay hor uga sii qaadan laakiin ay dib u dhacdo uma naan dooran in wixii xaq u leedihiin la idinka qaado idinkoo akaademiga idinkoo wax soo bartay waxaan filaynay ma hayo nasiib darreys casila waxaan online taasoo timaadan gabigiina shir jiraad qabataan maayirku uu baqaya waan garanaya maayirka madaxweynuhu sheegtayo gobolka Sanaag baan bara saabka ahay uu sheegto waan garanaya uu mastuuranaya laakiin intiina kale aan meel joogin ina ka hadas waxaan ogahay in 6 bilood uu kabkii garadag maqan yahay oo bara saab ku taagan yahay anu shacab aan dawladna ma shaqeey inaan baahida garada ka hadlana cidna uga mar qaadan maayo idinkuna waxa tiin kuwii shacabku doortay xilaan aniga isaar aan mid ilaahay aniga isaaro bilaadan aan isaarin baan ku hadlay laakiin kii bilaadan ku idin saaray kii ilaahay idin saaray mid walba gabtay maadan lees iska casila dacdadan maanta taagan oo ah ciidanka degmada intuu leeyahay in la qaado iyadoo roob daay oo ciidanku ay hay'adeen dhex maraan oo golaha deegaanku ay hay'adeen dhex marto oo shacabka iyaga wax garanaya ay hay'adeen inaan dhex marno maaha wax loojigo aqliga bilaadanka gali kara in la yaado ciidankii joogay ba garada laga qaado waa first day waa maalintii ugu horeysay iyo talaabadii ugu horeysay bara saab qaado degmo doorasho bedka inta la ku fadhida abaar laga soo doogayo wali lagu jiro hagi lagu jiro guri la isku qabsado hargeysa jooga ee bara saabka meesha madaxweynaha de maqaarsaarka uga soo dhigay inanka yar u keenayna waxaan leenahay garadag baa wax yeelaysan oo gobolka Sanaag baa wax yeelaysan oo nuqsaan baa ku tiin garadag maanta nuqsaan baa ku tiin baan leenahay idinkuna is casila wasiirka Xasan Maxamed Cali baan fariin u diray mudane wasiir wixii aad qabatay software update bata lagu soo kiciyo wasaaradaha dhaca akaademiyada iyo aqoontaada halka ku joogta inta marka laga yimaado codkaad ku joogtaa waa kii rays oo 100,000 iyo dheeraad coda kii garadag kii ceelafoyn kii ceer gaabo mid walba waxaan ka doonaynaa inuu madaxweynuhu noogu magacaabo political fingerade kana bari mayno adiga booskaaguna uu hadalay halkaas uu yeela cid ku socotaana ma jirto cid doonaysa uu ku hadalay laakiin waxaan doonaynaa waxa weeye saamiga siyaasadeed aan leenahay inaan helo oo transparency wixii aan xaq u leenahay cid Allah cid aan doo fariisanna ma jirto cid aan xabsi uga baqayno iyo cid aan cagajuleen uga baqanaa midna ma jirto ciidanka garadagna haddaan la soo celin caaw dee annagu garan mayno sabab uu maqnaan karo dumar ay istilay hadda istilay ciidan soo qabta oo gurigii keena baa la waay saldhigii keena baa la laayay laba gaari baa joogay labadii gaari ceer gaabay joogan waxa laga tagay 4 dumar ay jeeshin waxa laga tagay 6 dumar iyo laba inan aqliga sidanu fikiraan uma garanayo